بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإن سلام الدمان ومدى الصوماليين ملكستو أجوكتين وولاشين عدي بشير maantay topic aad iyo aad igu weyn baan ka hadli doonaa insha Allah oo ku saabsan dumarka Soomaalida ay hubna insha Allah naftayda iyo naftiina iyo intii fiirsatay inay wax ka hesho insha Allah taala topic-ana waxa waaye topic badan oo isku dhex jira insha Allah soo dhawaada dhala'aanta infertility waxa loo yaqaano waxyaabaha gabdhaha isku cadeeyaan ilmaha down syndrome ka ilmaha autism ka ilmaha maxayto chromosomal deficiency ga waxyaabaha soo dhan waxa keenay time yar baan hayaa insha Allah intaas yarna insha Allah Allah raxmaanka waxaan ka filayaa aan ka rajaynayaa insha Allah inuu nasugo wuxuu raali ka yahay insha Allah aan kala faa'iideysano insha Allah taala soo wada dhawaada idimo hal idimo salaam kar insha Allah gabdho badan baa leedli ila soo xariira oo dhahayaan abaayo inkastoo specialty-ga aysan ahayn infertility-ga taa waan ka cudurdaarnaya laakiin intii aan ka aqaanay intii aan research gareeyay aan rabaa insha Allah inaan idin la wadaago walaalayaal sidaan ognahay dadka waliba mataqaanaa medical field-ka ku jira ay fahmi karaan insha Allah in uur la yeesho aan details mataqaanada islaamaan nahay ma rabo inaan wax xadgudub iyo wax mataqaana graphic meesha ku soo bandhigo laakiin general idea insha Allah idinka siinaya qofka dumarka markay uur yeelanayso 6 bilood ilaa 3 bilood ka hor nolosheeda say ahayd bay noqdaan ilmaha ay dhalayso sababta ukuntu waxa sameeya qayb maskaxda kamida oo la mitochondria mitochondrias waxay sameeysaa ATP energy-ga aan ku socono wax ku sameeyno waxa soo dhan ay noo sameeysaa dad ATP baa sameeya in gabadha ukun caafimaad qabta ay create gareyso maxaa effect gareynaya waxyaabaha jirkeena aan marino waxyaabaha aan cunno waxyaabaha exposure-ka environment-ga waxyaabahaas oo kale stress hormones-kana waxa soo dhan waxay effect gareynayaan the quality of ukunta gabadha marka hadii aad rabto ilmo caafimaad qaba inaad dhashid hadda waxyaabaha igu badnaa horta ina maanta live ka soo galay ugu khalifa waxa waaye waxaan arkay video maalmahan social media wareegay dad Soomaali jooga oo iscadeyntii faleembe maxay heeto gashanayeen oo faleembe la isku muday hadda waxay gaartay in mataqaan faleembo asoo qofku ogeyn waxyaabaha dhibka oo ka iman kara marka ukuntaada marka rabtina uur yeelatin prenatalka inta uur yeelashada ka horeysa that period ba waxay tahay wax aad iyo aad u weyn oo important ah si ilmaha aad dhali doonto caafimaadkooda aad u ilaalisid cuntadaada sleepkaaga stresskaaga waxaas oo iyadoo rabo in la control let alone ina waxa marinaysa lotionka caadiga aad marsid jirkaaga waxaad ogaataa effect inuu ku leeyahay dhaqaatiirta qaar baa waxay qabaan waxyaabo badan inay steroid ka noqoto gabadha markay ay rabto inay ilmo dhasho uur yeelato marka anagiina hadda chemical badan business gabdha ilaa qeyr hasiye badan oo Soomaaliya businesski sameynay waan arkay aan wax level oo ku qoran ay si jirinin adiga marsan karta ma marsan kartid taas waa personal mataqaana choice-kaaga laakiin waxa aan rabaa inaan hadda inta ka cadeeyo waxa waaye waxaad ogaataa 6 bilood mise 3 bilood oo inta aad uurka yeelan ka horeysa inay ka wanaagsan tahay marka uurka leedahay iyo marka dhashid oo banaanka ku kornaysa marka gabadha walaashay maanta i fiirsanaysa just waxa rabo inay iga faa'iidid wax yarood is cadeysay ama naag kale mataqaana darteed heblaaya maanta cadeedo arooska markay timid way hilaacaysay ama se maxay heetoole qof kale to society-ga nimanka waliba u badnaadeen dumarkeen waxyaabaha ay ku bush gareyso sababta midabkii naturalka ahaa ragga Soomaalida ilaa qeyr hasi waxa la yiri badi ma rabaan oo waxay rabaan naagta cad marka wax yar oo mataqaana just xamaasad aad u sameysay ilmaha aad dhali doontid future-kooda inay baabi'iso adiga walaashay isweydii taas oo ilmihi xanuunsan aad maxay heeto create gareysid sababta waxyaabahan chemical-ka ismarinaysid way effect gareynayaan ukuntaada ukunta caafimaad qabtaan ilmo caafimaad qabta dhasha insha Allah taala taas waxaan uga gudbayaa tan ukunta iyo mataqaana prenatalka markaad uurka yeelato dhaqaatiir baad la xiriirtaan waad ogtahay prenatal clinic ina qaatida la rabaa inaad maxay tahay cunto healthy cuntada la rabaa kaafiinka yareysida la rabaa stress level-kaaga hoos u dhigtid hurdadaada hurdo fiican aad seexatid all that mataqaana waa journey-ga aad rabtid ilmo caafimaad qaba Allah raxmaanka inuu kugu siiyo taas aan ugu gudbaa tan kale oo society-gan especially nimankana waxaan dhihi lahaa
gabadha inuu influence ku hayo nin mataqaana inuu naag cad rabo hadduu rabo gabdho waxaa jira pigmentationkooda ilaahay raxmaanka light ka dhigay iyo kuwo madow ka dhigay taas waxba kama bedelayso qofka shakhsiyadiisa marka inaad qof isku cadaysid aniga runtii rood ahaan way ila qaldan tahay sababtoo ah kalarka ma ahan quruxdu waa gudaha insha Allah tacaala society-geena waa inay ka soo horjeestaan waxaan la is cadaynaa anagu dad madow baan nahay Afrikaan ka imaanay madowga waa inaan ku faano haddana westernka waxaa yaalo makeup color allaal colorka ta qurux ka dhiga hamana gabdhoodo aad u qurux badanaa jira oo markii mataqaana banaanka maraan ilaahayga raxmaankan uu siiyay madow laakiin haddana ka qurxan kuwii cadaanka ahaa soo inaan horta colorkeena ku faano waa in mataqaan campaign-kaas la qaado si ilmahan xanuunsan oo mar walba aan arkayna ay nooga yaraadaan qofka Allah raxmaanka waa inuu habi ku noqdo colorka uu siiyay alxamdulilaahi rabbil caalamiin in adoo waxna ismarinin adoo mid kale sense of mataqaana personality-gaagi ama qofnimadaadi bay dilaysa hadaa qof kale isku ekaysin ani hadii Allah raxmaanka madow isiiyay oo is cadeey qof kasta arkay wuxuu leeyahay oo ayaantan waa is cadeeyso oo ayaanta maxaa why will you even go through that marka waa idinka sii dhacaaya insha Allah raxmaanka waxaan ka baryayaa kuwii mataqaana naftooda iyo nafteenaba Allah raxmaanka ah caabuda oo waxyaabihii Allah raxmaanka uu noo abuuray mar walba hadda waxaa mudda society-gan inay baxoogaa dhinaca diinta laga sileexanay waxaa moodaa inaad professional ahaan karin adoon asturan waxaad moodaa inaad professional ahaan karin adoo diintaada haysta anigu waxaan jeclaan lahaa insha Allah naftiina u badan korinaynaa inaan example u noqono oo aan korino anagoo wadankan joogno dad muslimiin ah oo Afrikaan ah oo Soomaali ah oo dhaqankooda iyo diintooda mataqaana ka run sheega at the meantime academic oo dadku wadanka jooga la jaan qaadi kara laakiin ina qaybteen is cadeeyaan qaybteen Snapchat-ka waxa ka socda waad aragteen kulliga fanaaniin baan wada noqonay ilaahay raxmaanka anoo dambi dhaafo sidee anaga oo muslim su'aasha idinka tagay waxa waa anagoo muslimiin ah oo Afrikaan ah oo madow oo ku qanacsan madownimadeena sidee baan western society ku noolaan karnaa insha Allah time badan ma haysto wixii aan gafeen shaydaanika ahaatay wixii aan saxayna Allah raxmaanka ay ka ahaatay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh